hagaag haddaba si aan shaqadeena u baranno ama shaqadeena u qabsanno waxaan u baahannahay marka koowaad in aynu la soo degno ama aynu maxaa yiraahdaa la soo degno download ku samayno laba shay san shaqadeena u qabsanno shayga koowaad waxaan u baahannahay inaan la soo degno waxa la yiraahdo Kali Linux shayga labaadna waxaan u baahannahay inaan la soo degno firmware okay marka labadan maxay kala yihiin Kali Linux waxa weeye sadabkii Kali Linux ayaan insha Allah taala la soo tagi doonaa waa shaqada koowaad shaqada labaadna waxaan la soo deesan ugu shubno ilaa operating system-kii oo kale waa Windows la soo degayo kale iyo wixii lamid ah laakiin waxaan la soo degi doonaa nooc virtual machine-ka ku shaqeeya kan labaadna wuxuu ku saabsan yahay insha Allah taala inaynu la soo degno maxay firmware-kana la soo degno marka laba nooc oo firmware jira firmware-ka hadii ay problem kugu yahay koorsada firmware-ka fadlan ama virtualization-ka soo daawo marka koowaad intaadan maartay tamlaan balweeraan faham guud ka soo marka firmware-ka noocan la soo degayno insha Allah taala laba nooc baa jiray virtual machine-da ku samaysan kartid virtual machine-ku waa computer khayaali ah ina computer-kaada ka dhex samaysatid marka computer-kaada 5 computer oo kale ka sii dhex samaysan kartaa focus waa saas meesha soo gadaa 5 computer oo kale adoo hardware-ka computer-kaada isticmaalay marka waxaan la soo degaynaa insha Allah taala firmware-ka ilaa firmware-kan ayaan Kali Linux ku dhex samaysan doonaa hadhow marka saas ay shaqadu tahay marka labadaas shaqaan ka bilaabaynaa way shaqada koowaad marka waxaan ka bilaabaynaa insha Allah taala inaan Kali Linux la soo degno download baa qoraysa kadibna waxa qoraysa Kali Linux Kali Linux marka sida soo qortid waxa weeye waxaad ku dhufanaysaa halkan get Kali Linux new tab ku furo way marka Kali Linux ka laba nooc ayaa jira nooc waxa weeye bare metal waxa laga wadaa waa mid hadaa la soo degtid image-kiisa ama wixii la soo degtid waxa loogu talagalay in computer-ka toos loogu shubo yaani computer-ka hadda Windows baa ku jira laakiin Windows kuma jirayo Kali Linux ayaa la rabaa live loogu shubo marka kaas waa noocaas waa qalabka live ugu shubo ama computer-ka live ugu shubo kan virtual machine-ka ana waa ka virtual machine-ka aan u rabno waxa loogu talagalay in computer khayaali marka ka dhex samaysanayso computer-kaada oo virtual runtiina computer khayaali eray ahaan baan u dhahayaa laakiin shaqadii computer qaban jiray oo dhan buu ku qabanaya marka virtual machine-ka ayaad dag ku siinaysaa virtual machine-ka hadaba hadaynu soo raacno laba nooc baa jira 64-bit 32-bit waa 64-bit ka dooranayno waxa jira sidoo kale halkaan hadaan fiirino firmware iyo virtual box laba nooc oo virtual machine-da loo isticmaali karo weeye marka annagu waxaan la soo degaynaa firmware ayaan la soo degaynaa marka waxaad dhahaysaa download ayaad ku dhufanaysaa check download ayaad siinaysaa marka halkaas ayuu download-kii uu bilaabanaya halkaas ayuu soo galayaa download marka dhagsiisid shaqadu waa dhan tahay wax ku haray ma jiro waa ka download-kii ayaa bilaa markaan waan iska xirayaa maadaama aan horay oo la soo degay shaqada labaadna waxa weeye download firmware workstation player la soo degtay firmware workstation player waa mid free ah oo karaagi waxba kaaga baahnayn kaas ayaan insha Allah taala la soo degi doonaa hadii ay bayno marka firmware workstation player-ka ayaynu la soo degi doonaa way marka isagana right click waxaan leeyahay new tab dag saan hadda soo raaco workstation player-ka oo soo kacaya laba nooc baa jira workstation for Windows iyo for Linux marka aniga maadaama computer-ka isticmaalayo Linux uu yahay marka qeybta afka inuu sida ka bedela laga yaabo halkan baara Windows ku soo baxdo marka isla meeshii marka Windows ayaa dooranaysaa ileen adigu hadda computer-kaada Windows ba ku jira haddii wax kale ku jirana haddii Linux ku jirana dhib male laakiin haddii Windows ku jiro Windows oo inta badan sida dadku u badan yihiin download ayaa isagana aad leedahay sidaas ayaan waxaynu kula soo degnay maxaa download-ka hore kaaga bilowday firmware-ka waa aragtaa waa file 584 MB ah saas ayaad maartay file-ka kalena kula soo degaysaa labadaada file ayaa la soo degaysaa intaas ama ku joojinaynaa qaybtaas ah sida loo la soo dego firmware-ka iyo Kali Linux-ka